garowe waa magaalo madaxdii Puntland 98 ayaa Puntland ku heshiisay inay magaalo madax u noqoto waxaadna moodaa marba marka ka dambaysa in fawdo iyo dhalinyaro marba sameynayso waxaan ku haboonayn oo u qalmin casuumadda hadda ka hor barxadda dab lagu shiday oo xaaladeedu meesha gaadhay waa ogeyd anigu raggii ugu dambeyntii maqribkii ka dareeriyay meesha waan ka mid ahaa dadkii isugu yimi kadib dhowr jeer baa dawladda hoose dhalinyaro hubaysan qabsatay hadda xalay saldhigii baa la weeraray waxaan maxay ku qotobaan oo foodada xilligan isku soo aadiyay والله runtii waa dhalinyaro iyo dad wax magarata ah oo adigu arrimo dhacay ama dad dhintay arintood ka mudaharaadaya qofka dhintay xanuun buu leeyahay hadee wax ka weyn qof dhintay ma jiraan laakiin haddana dhanka kale markii laga eego qof dhintay ummadda kale oo dhan dhibaatada loo geysanayo iyo casuumadda baa ka weyn oo isaga xal baa laga gaari karaa ama meel giisaba galay haddii qof dhinto si kasta ha u dhintee ciidamada biliiska ruuxooda qaabka ay u shaqeeyaan inay wax badan ka bedelaan baan u soo jeedinayaa sababtoo ah in ay dadka iyaga mas'uulka ah u dhibriyaan oo wax badan ilaaliyaan oo xabadda dhowraan oo ciyaar xabad loo ridin haddii aysan naftooda u baxsan waayin inaysan qof shacab xabad iskaga ridin oo iskaga dhifan ayaan u soo jeedinayaa arrintan marka maxay ka turjumaysaa magaaladii inay foodo sii noqonayso maxay kula tahay arrintaas horta eedeeda dadka dhan baa wadaaga annagu haddaan nabadoonnada nahay qayb baan ku leenahay dadka shacabka iyo dhalinyaraduna qaybta ugu weyn bay leeyihiin iyagu waa kuwa sameynaya dawladuna hadee qayb bay ku yeelanaysaa sababtoo ah in waxa kan loo fiirsado maaha waa in nabadoonnadu go'aan degdega iyo shirinta isugu yimaadaan tala ka gaaraan oo waliba saxiix laga soo saaro ciddii fawdo samaysa wixii ku gaara inaan cidna lagu lahayn isimaduna ay guddoomiyaan dawladuna ku hogaamiso oo iyadu dawladdu dalka mas'uuliyada ka ah ciidamada laftigooda xataa foodada marmar qayb ka ah oo iyagoo aan tuuto qabin oo adres ciidan qabin bay qoryo wataan baabuur caadi ah shacab soo ka xisanayaan hadda taasina khalad weeye taas waxaa la rabaa ciidamada taliyaha qaybta iyo taliyaha biliiska in ay ciidamada qorshe u sameeyaan oo biliisku ay maaragtay magaalada amniga sugidda gudaha wixii aan boortarada iyo difaacyada hore ahayn oo daraawiishtu leedahay wixii gudaha waxaa mas'uul ka ah ciidamada biliiska dawladda waxaan u soo jeedinayaa saldhigyada ciidamada jooga oo biliiska ah in gobolada la isu dabamariyo oo gobol walba ciidankii jooga biliisaha mid kale la geeyo kaas kii laga qaadayna mid kale loo bedelo sida taliyayaasha qaybaha la isugu bedbedelay oo aan madaxweynaha arrintaa aada ugaga mahadcelinayo uu sameeyey idinku eedda waxaad ku yeelanaysaan haddii dawladdu ama laamaha amnigu cid ay soo xiraan fildambiyeed samaysay ama dhalinyarahaada qof kala ahaadee odayaasha dhaqanka ayaa soo daaya oo saldhigyada tegaya maya wixii dambi gala oo dambi lagu soo qabto ciddii ka daba tagta iyaga lagu daro waan anigu leeyahay waxaan u soo jeedinayaa oo ku adkaynaya hadday odayaal tahay iyo hadday dhalinyaro tahay iyo hadday shacab weynaba tahay guud ahaan Puntland isku mid weeye Garowana waa magaalo madax Soomaaliya oo dhan bay ka dhaxaysaa qof kasta oo hagaajinaya oo wanaageeda ka shaqeynaya Soomaaliya waa lagu soo dhaweynayaa cidi kama leh qofkii biinayana kii ku dhashay hadduu yahay iyo kii yimi marba kii biinaya in laga qabto baa waajib ah dadka shacabka waxaan u soo jeedinayaa waxaasoo kale wax laga xishoodo weeye wax eeba weeye qayb baa duubaysa oo waxa facebookyada dhigaysa magaaladii waa dhibaata ka dhacday magaaladii kan weeye waa aragtaan garanaysaa dhankooda maamulka gobolka heer degmo heer gobol iyo taliyayaasha ciidamada waxaad firaysaa waxaan u soo jeedinayaa guddiga amniga gobolka shaqada ay iyagu leeyihiin inay qabsadaan gobolka shaqadiisa madaxweynuhu dalka oo dhan buu mas'uul ka yahay iyo golaha wasiiradu gobolka mas'uuliyadiisa mas'uul waxaa ka ah guddiga amniga gobolka oo barasaabka ugu horeeyo oo duqa magaalada iyo taliyaha qaybtu ku xigaan ayaa mas'uul ka ah gobolka arrimihiisa waxaan rabnaa iyagu inay wax ka qabtaan oo shaqada ay leeyihiin qabsadaan oo wixii ay u tabar waayaan shacabka la kaashadaan iyo dawladaba ka sareysaba laakiin looma baahna maalin walba magaalo madaxdii in la yiraahdo ciyaal baa fawdeeya ciyaal u fawdeyn karaa dalku dawlad buu leeyahay ciidamo biliis buu leeyahay amniga in la sugo oo wixii hub wata la qabto iyadoo shacabka la ilaalinayo shacabka dawladdu iyada mas'uulka ah looma baahna dad shacab in la iska laayo ama dhibaato loo geysto lamana rabo in cidi ku soo dhex dhuumato dhibaato ka shaqeyso dib dambena waxaan u soo jeedinayaa waxa kan oo kale inaysan u dhicin cid allaale cidii magaalada amnigeeda iyo nabadgelyadeeda iyo dadkaas wada jirkiisa wax u dhimaysa gacan biraha lagu qabto waan leeyahay cidii ka soo dhaga adeegtana gar iyo mag ma lehe
tallaabo sharci ah laga qaado nabadoonnada iyo isimada waxaan usoo jeedinayaa arrinta noocaas oo kale ayo soo noqnoqotay inaan indhaha laga qarsanee aan shir weyn iyo go-aan weyn ka yeelano insha allah